Soo dhawaada jaalayaal. Nico wuxuu soo sameeyay challenge ah in 6 gabdhood lagu dhex qariyo 2 wiil, kadibna dhowr round la ciyaaro ilaa laga soo saarayo wiilasha. Si wiilasha aan loo aqoonsan, dhammaan waxaa loo xiri doonaa dhago codka bedelaya. Labada wiil ee gabdhaha ku dhex jira, midkii ku daaha ayaa final tagi doona, kadibna la tartami doona labada wiil kale ee iyagana tartami doona. Gabdhaha waxaa u dheer indhaha ayaa laga xiri doonaa si aysan u arkin wiilasha ku dhex jira. Labada tartame ee hore waa AJ iyo Nico. Wareega koowaad waxaa la siiyaa 3 daqiiqo oo ay isku wareystaan si gabdhaha ay u ogaadaan labada wiil ee ku dhex jira. Isla markiiba gabdhaha waxay bilaabaan inay su'aalo weydiiyaan maadaama aysan aqoonin nambarka ay wiilasha xiran yihiin. Nico si aan looga shakin su'aalaha ayuu isna ku dhex tuurtaa. Su'aal ahayd ninka aad saaxiibka tihiin, lacagta isaga miyaa bixin jiray ayaa la weydiiyay gabadha nambarka 8aad. Waxayna ku jawaabtay maya, waan kala qaybsan jirnay. Aniga ayaana sidaas jeclaa ayay ku tiri. Nico isagoo aan la weydiin ayuu dhahaa, ani waxba kama bixiyeen, asaga ayaa baxsan lahaa lacagta. Nico su'aal ayuu weydiiyaa gabadha nambarka 4aad. Maxaad make-upka iskaga dhaqdaa ayuuna weydiiyaa. Waxayna ugu jawaabtay saabuun iyo biyo. Balse inuu shaki galiyo ayuu isku dayaa, gabdhaha kalena uu ku soo jeediyo. Nico su'aal adag ayaa lala helay, balse waqtiga ayaa dhamaaday, sidaas ayuuna kaga badbaaday. Markii uu wareega dhamaaday, dhammaan waxaa la weydiiyaa nambarka ay uga shakisan yihiin inuu nin yahay. Kadibna qofkii helaa codadka ugu badan ayaa game-ka ka bixi doona, wiil ha noqdo ama gabar ha noqoto. Isku dar codaynta wareega koowaad. Nico iyo gabadhii nambarka 4aad haysatay ayaa min 4 cod helay. Sidaas darteed, mid walba 30 sekin oo uu gabdhaha ugu qanciyo inuu gabar yahay ayaa la siinayaa. Kadibna dadka kale ayaa codayn doona. Nico shax fiican ayuu degay. Su'aal horey loo weydiiyay oo uu waqtigu ku dhamaaday ayuu ka jawaabay. Codayntii ayaa dib loo bilaabay. Waxaana codadka ugu badan heshay gabadha nambarka 4aad. Sidaas ayayna ciyaarta uga baxaysaa. Nico iyo AJ weli waa goobjoog oo lama soo qaban. Sidaas darteed wareega labaad oo 3 daqiiqo ah ayaa la siin doonaa. Si su'aalo kale oo isku kala saari karaan ay isku sii weydiiyaan. Isla su'aasha koowaad waxaa la weydiiyay AJ taas oo ahayd skin routine-kaaga noo sheeg. Maana ayuuna taabtay markuu dhahay, waxaan iska xiraa tinta wejiga. Isla markiina shaki ayaa ku dhashay gabdhaha, iyaga oo ku leh ma hubtaa inaadan nin ahayn. Si uu indhaha isaga jeediyo, isaga ayaa su'aalo weydiiyay gabdhaha kale. Nico-na si aan loo tabin, isna su'aalaha ayuu qayb ka noqdaa. Gabagabadii wareega labaad waxaa bilaabata codaynta. AJ iyo Nico ayaa min 3 cod helay. Sidaas darteed min 30 sekin ayay haystaan oo isku cadeeyaan si ay isku badbaadiyaan. 30 sekin kadib waxaa codadka ugu badan helay AJ, isaga ayaana ciyaarta laga saaray. Gabdhaha waxaa loo sheegaa in weli wiil uu ku jiro ciyaarta. Kadibna wareega 3aad ayay isla aadaan si ay isaga saaraan wiilka ku jira ciyaarta. Dargest iyo Harry oo banaanka ka daawanayay ayaa dhahaya, waxaan sharad ku gali karaa wax kasta oo aan haysto in Nico markan la soo qaban doono oo uusan badbaadeen. Dhammaadkii wareega 3aad waxaa bilaabata codaynta. Waxaana isku cod noqday oo la kala saari doona Nico iyo gabadha nambarka 5aad. Markii codaynta lagu celiyayna, waxaa loo codeeyay Nico inuu ciyaarta ka baxo, taas oo la macnaa in la soo qabtay wiilka ku jira ciyaarta. Inta kale ciyaarta ku jirtayna indhaha inay furaan ayaa loo sheegaa si ay u ogaadaan inay guuleysteen. Maadaama Nico uu AJ ciyaarta kaga dambeeyay, isaga ayaa finalka u gudbay. Waxaana markan tartami doona Dargest iyo Harry. Kii soo baxa ayaana finalka la ciyaari doona Nico. Wareega koowaad ayaa bilowday si ay isku su'aalaan oo ay u aqoonsadaan wiilasha ku dhex jira. Harry inta hool aan loo dirsan uu galay ayay su'aal laqsiiyeen. Dhiiqa ayuuna lugaha la galay, taasoo sabab u noqotay in laga shakiyo. Markii codaynta ay bilaabatay, Harry ayaa helay codadka ugu badan, isaga ayaana ciyaarta laga saaray. Wareega labaad iyo su'aalo kale. Dargest intaan waxba la weydiin, isaga ayaa kala hormaray gabdhaha. Markii uu soo idlaaday wareega labaad, codaynta ayaa bilaabatay. Dhammaan gabdhaha waxay u codeeyeen Dargest. Isagana codkii uu haystay wuu ku sii darsaday, 7 cod ayuuna ciyaarta uga baxay. Gabdhaha oo idilna waxaa loo sheegaa inay indhaha furaan maadaama ay guuleysteen. Dargest wuxuu finalka kula tartami doonaa Nico. Isla sidii hore, wareega koowaad ayaa u bilaabmaya. Waxaana wiilasha laga rabaa inaan midkoodna la qaban ilaa ay ciyaarta ka dhamaanayso. Dargest 2 su'aal oo darandoori ah ayaa ku dhacaysa.
balse si macquul ah ayuu uga baxsaday. Nico su'aal fudud ayaa ku aaday, si xaraka leh ayuuna uga baxsaday. Dhamaadkii wareegga koowaad, waxaa codadka ugu badan heshay gabadha nambarka 8aad, iyada ayaana ciyaarta laga saaray, taasoo ka dhigan in weli ay ciyaarta ku jiraan wiilasha. Wareegga labaad, Darkest su'aalo tiro badan ayaa ku dhacay, balse si caqligal ah ayuu uga wada jawaabay. Dhamaadkii wareegga labaadna, waxaa codadka ugu badan heshay gabadha nambarka 5aad, sidaas ayaana ciyaarta looga saaray. Weli rajada wiilasha waa mid nool. Wareegga saddexaad ayaa bilowday, isla sidii Darkest su'aalo ayuu dhibana u yahay. Markii la codeynayna, isaga iyo gabadha nambarka 1aad ayaa isku cod noqday. Min 30 sekin ayaa la siiyaa, kadibna waxaa loo codeeyaa in ciyaarta ka baxdo gabadha nambarka 1aad. Wareegga afaraad, Nico wuxuu dhiiqo dhex dhigaa gabadha nambarka 6aad. Wuxuu weydiiyey su'aal ahayd, maxaad ka shaqaysaa? Waxayna ugu jawaabtay, carruurta ayaan jiliinka baraa. Markaas ayuu ku dhahaa, ma dhihi karnaa jilaa ayaa tahay? Haa ayayna dhahdaa. Kadibna barnaamijka maxaad ku joogtaa markuu dhahana, inaan gabarnimo jilo ayaan ku joogaa ayay ku dhahdaa. Kadibna isaga oo dadka kale ku soo jeedinaya ayuu ku dhahaa, wiil ayaa tahay, gabarnimo ayaadna jilaysaa miya? Fursad ay isku badbaadiso ayuu u diiday ilaa uu waqtigu ka dhaco. Markuu wareegga dhammaadayna, Nico iyo gabadha nambarka 6aad ayaa isku cod helay. Sidaas darteed min 30 sekin ayaa la siiyey, kadibna codeynta kale ayaa bilaabmatay. Gabadhii nambarka 6aad ayaana loo codeeyey in ciyaarta laga saaro. Hadda waxaa siman tirada wiilasha iyo gabdhaha ciyaarta ku jira. Sidaas darteed, wareegga 5aad ayaa loo gudbayaa, inta hartay ayaana iswareysanaya si ay isaga saaraan wiilasha ku dhex qarsoon. Markan, waxay xoogga saareen inay qalqalgeliyaan gabadha nambarka 4aad, wayna ku guuleysteen inay kala dilaan labada gabdhood. Waxayna heshay codadka ugu badan ee ciyaarta, iyada ayaana laga saaray. Waxaana markan isku soo haray hal gabar iyo 2 wiil, waana sida ay wiilasha rabeen. Wareegga 6aad ayaa bilaabmaya, waana wareegga ugu dambeeya ciyaarta. Labada wiil midkood ayaa la aqoonsan doonaa, kadibna kan soo haray ayaa guuleysan doona. Inta uu wareeggu socday, Darkest iyo Nico si cad ayay isku weerarayeen, iyaga oo muujinaya inay labada wiil yihiin. Markii la gaaray codeynta, Darkest wuxuu u codeeyaa Nico, Nicona Darkest ayuu u codeeyaa. Sidaas darteed, qofkii ay gabadha u codeyso ayaa noqonaya kan laga guuleystay. Nico ayayna u codeysay, isaga ayaana laga guuleystay. Darkest ayaana noqday guuleystaha challenge-gan. YouTuberada Soomaalida, YouTuberkee ayaad jeclaan lahayd isaga iyo tiimkiisa inay muuqaalkan ay soo sameeyaan isagoo Soomaali ah? Fadlan YouTuberka aad xiiseynayso inuu soo sameeyo qaybta commentiga uga wac, kuna dheh muuqaalkan noo soo sameey. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, follow soo dheh channelkeena YouTube-kana subscribe noo saar, muuqaalkana noo like garee. Mahadsanid jaalle.